ka tirsanaa maamulka Somaliland oo ku sugnaa deegaanka Carraweyn ee gobolka Cayn ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray ciidamada dawladda Puntland ee ku sugan Buuhoodle waxaana goobjoog ahaa meesha ciidamadaasi lagu kala wareejinayay xildhibaano ka tirsan dawladda Puntland oo ku sugnaa deegaanka Carraweyn ee ka tirsan gobolka Cayn ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ciidamadan maanta sida rasmiga ugu biiray ciidamada dawladda Puntland gaashaanle sare Cabdirasaaq Cismaan oo loo yaqaano gar adag qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda Puntland oo ku sugnaa Buuhoodle isla markaana soo dhaweeyay ciidamadan maanta ku biiray ciidamada dawladda Puntland ciidamadan oo tiradooda gaaraysa 160 askari oo ku sugnaa deegaankaasi Carraweyn ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray ciidamada dawladda Puntland ciidankani waxa uu ahaa 2007 bishii 6 ciidankii Carraweyn miidiyaha laga daawaday ee beesha reer Cali Gari ee ku biiray Somaliland meel walba laga daawaday maantana 2008 bisha koobaad 18 bisha labaad wuxuu ku biiray dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya sacab kalsoonidii aanu Somaliland u qabnay waanu kala noqonnay Puntland ayaanu ku biirnay abandulaha ciidanka daraawiishta gobolka Cayn waxaan la wareegay maanta ciidankii Carraweyn aniga oo salaan weyn uga wada madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Gaas madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay oo dhaweynaya waan idin sugaynay war farxad la tahay hadal badan ma hadli karaba farxad daraadeed ma sha Allah farxad marka waxaan leeyahay waad mahadsantiin tishalay tagu ilow shidara xagu ilow lama waa salaamantii Cabdikariim Maxamed Aadan ahna madax xasaankii wardoonka ciidamada aaga Cayn waxaan leeyahay horta guul baan taaganahay guul Allahu akbar الله والصلاة والسلام على رسول الله waxaa maanta farxad noo ah sharafna noo ah ciidankaas hadda dhabarkayga taagan ee tiradiisa la sheegay oo markii horena dhinaca ku biiray imikana u soo noqday ciidiisii iyo dadkiisii iyo dawladdiisii isagoo gacantiisa ku dhistay ayaa farxad noo ah waa soo dhawaynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada isla ciidiinii iyo isla magaaladiinii ku soo dhawaada waxaana laydiin ballan qaadayaa xuquuqdiina iyo sharaftiinaba inaad heshaan wasaacada dawladda Puntland wixii idinkaga luma ninkaad kala xisaabtamaysaan waa isaga waa Faarax Sulub Jaamac inta waxa raacda ciidanka halkan tumoro markii hore ku biiray Somaliland uguma biirin wadaniyad iyo dawladnimo midna uguma biirin ciidankaas waxa weeyaan dayac baa meesha geeyay marin habaabin la marhabaabiyay Puntland baana dayacday oo anu aan wakiil uga ahay baa dayacday sababtaas baa xagga geysay dad qadiyad iyo dawladnimo iyo dhalasho midna ku aaday ma deerka meesha degan oo anu wakiilka u ahay waxa lagu yaqaanaa halgan iyo mujaahidnimo iyo wadaniyad dalkooda iyo diintooda inay difaacaan caan bay ku ahaayeen laguma aqoon inay cadsan ci cunaan taariikhna uma ilahayn dadka xoogaha waxa gaadhay wasakh baa gaadhay wasakhda waa ka meedhayna dhamaanteen intaanu tiro leegnahay waxaan kaloo u sheegayaa xuquuqdii ciidanka maxad ballan qaasa maamulka Somaliland ee maalin walba ku soo duulaya gobolka Cayn iyo Sool inuu rag leeyahay baan u sheegayaa waxaan kaloo u sheegayaa nimanka dhulbahante ee taageeraya raacsan inaan dhulbahante taageersan oo Somaliland raacsan oo calan u raxaya uusan jirin beesha ciidankani ka soo jeedo ahna odayaasha deegaanka magaaladan Carraweyn maanta ay tahay bisha labaad 2018 ay 11 tahay waxaanu taageero u muujinaynaa awalan dawladda federaalka Soomaaliya waxaanuna leenahay soo dhawaada mar labaad waxaanu ku wareejinay ciidamadii ka tirsanaa beesha tan oo markii hore ku biiray Somaliland si aan tashi lahayna ugu biiray ka daba tag aanu ka daba tagnay darteed waxaanu ugu soo celinay
waddankooda xaqiiqada ah oo Puntland ah. Xuseen Xasan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland deegaanka Carraweyn ee gobolka Cayn.